بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سود هذا الصحابة وفاعل خير يمركله ما أنت سياسة أي كشدان تهي لبدا نبان ربا إنان وحير كإرادة إيوه دمان سياسيين الصومالي دا إيو دمركا ayaan rabaa inaan wax ka iraado intii ilaahay iga waafajiyo marka soo dhawaada gaar ahaan waxaan la hadlayaa dumarka labada nin maadaama hadda iyaga labadooda ay ka shidan tahay ayaan tusaale u soo qaatay dumarkaan rabaa inaan la hadlo marka labada nin amiiska noo saaran labada nin mid waad garanaysaan waa madaxweynihii hore midna waa Saadaq John ninka lagu magacaabo oo taliyaha booliiska ah macnaha banaadir taliyaha booliiska ee banaadir baa la yiri walaalayaal haddaad nagu cusub tihiin adinkoo raalli naga ah channelka subscribe-ka saara saara aan share iyo comment ka bixiya iyo like intaas aan idinka codsanaya waa codsi Soomaali weynay Soomaaliya waxaa loo baahan yahay in la fakaro Soomaaliya waxaa loo baahan yahay in maskaxda laga shaqaysiiyo maskaxda lagu rakiban oo computerka 100 goor iyo 1000 jeer ka tirada badan ilaahay wuxuu noo siiyay inaan fakarno aqliga ilaahay wuxuu noo siiyay oon xoolaha uga gidisanahay inaan fakarno walaalayaal anigu eediyadayda ayaan ka hadlayaa cid aad taagay ciidan caayay midna ma jirto waxa weeye labada nin saaxiibo ayay shala ahaayeen ninka la yiraahdo Saadaq John ninka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore wuxuu ku amaal marin hayay dhibaatada uu geysto iyo dadkii iyo dhalinyaradii uu laayay ayuu ku amaal marin hayay oo darajooyinka loogu dalacay markii 17 December 2017 guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur dhalinyaradii markuu ku laayay oo waliba uu maxaa tiraahday kabahana ay ku aaseen nimanka markaas maamulka fili Soomaaliya joogay oo waaridkood xitaa loo diiday waxa weeye amaal mar ayaa lagu dalacay marka balaayo shalay iswadatay iyo niman shalay saaxiibo ku ahaa ummadda inay laayaan ummadda hagardaamayaan oo xaq darro iskugu yimid maanta hadda iyagu isdirireen oo labadoodii isku dhaceen oo maaragtay xaqii ilaahay isku diray in la yiraahdo dumarow lacagta soo bixiya waryaa mareexaanahay war lacagta la soo guro waryaa hawiyahay lacagta la soo guro sheekadu mareexaan iyo hawiye maraysa oo arintii qabyaalad laga dhigo oo waliba dumarkii la yiraahdo lacagta soo guro waayo arintan aniga waxa iga keenay inaan labada nin tusaale u soo qaato kulli madaxda maaragtay meesha fadhiyo dhan midka baarlamaanka iyo cid walba oo Soomaaliya horboodayso maanta u gashatay maxaa tiraahdo hubkana u qaaday suudkana u xiratay way kula jirtaa idaacadaha waxaan ka maqlaayay dad maaragtay u kala dhashay labada reeron sheegay oo la leeyahay lacagta soo gura war dumarow lacagta soo gura dadka Yurub iyo Ameerika joogo lacagta soo gura marka dadka Yurub iyo Ameerika joogo waxaan u sheegayaa ilaahay ha ka cabsada qabyaaladii idin qaadin shilin lacag ha ku bixinina gaar ahaan dumarow shalay nimankan markay heshiiska ahaayeen oo nimanka Soomaaliyeed ay heshiiska yihiin oo kursiga ay heshiiska ku yihiin darajooyinka la bixin hayo waxba la inkama siiyo oo waxa la yiraahdaa waa dumar ee xagga nooga reexa xaq darrada cidda idinka gasha hadii qof dumar ah oo maartay nin uu dilo ama oo kufsado lama soo qabto ninka gudoomiyaha baarlamaanka intaasoo sharci ayuu baas mareeyaa intaasoo sharci ayuu ka hadlaa wili maaragtay asagoo dhahayo xuquuqda dumarka sharci ku saabsan ayaa la baas mareynaya ninkii dila ninkii bahdila ninkii maaragtay kufsada ninkii maxaa tiraahday ilmaha inta ku fura oga taga oo ilmaha maaragtay ku dayaca dumarka iyo caruurta xaq ay leeyihiin bal wax ka hadla oo baas mareeha maaragteen waa maya marka dumarow markii nabadda la yahaba laynma rabee markii dagaalka lagu jiro maxaa laynkugu yartaa adinka nacaseen ma tihiin nimankaanu dadka dhiigooda iyo nacfigooda ku heshiiyeen haddana ilaahay baa isku diray meeshay doonaan ha iskala dhaceen ha isdileen maaragtay meesha doonaan ha iskala dhaceen
كل وانوجه هو مركب بلايا دعد والين مرنا أو مدافعي إذنكو حقنا ين أو المها إنك قال لنا إذنكو الله ينهايا لكن شيرين العجها كوب حننا وياتين العجها كوب حنيسين إن أطبق ترادين أو ترادين ما ركت ها وحوية وحق لعكت هلا جره لعكت تي وحكومة كان أي الدون وينها أقصى قاتين مساكين حقوق منينا يا مساكين مي حقوق بتين ورمركز حريها قحوتي أشوكتين وحبا يدين قبطان ما هي يدين قبطان وأدين كاس دمرو أدين كيعرور تني وأدين كاس وورشدي ويلش سو ساريسي وورشدي ويلش قبلها سو ساريسي دمركو وهو يوينكي حتى وحي أودي كروايل عال إنا إدين قضان عال كعن قد كأهنا أو لولك لقى قضى بيها لقى دبت تجانا إلى وحو كوكعيا صدق كل أفر كل مت كريج أهنا وح يربو كوكعيا إلى بقول كنا كوكعيا ملايين أي اسكول هالوشان ملايين أي كلاقاتان يا أو يران كنتنين أما كنتن كما بدنا نسليا نمانك الصومالي أودي داي إني دكتو يا قدوميها هورو برلمانka madaxweynihii hore oo maaragtay Soomaaliya kuwa maaragtay la taliyaalka u ah horta la taliyaalkooda waa kuwa hoogay Allah naga qabto kuwaas wax xun bay kula talshaan Allah ka qabto Soomaali dad cadow ah oo yuhuud ah way kuwaas waayo dadkoodii ayaa saa u dayacan war adduunyada marka ku fiirinayso oo sharaftaada la eegahay marastaada ayaa la eegahayaa hooyooyinkii way waxaas caagado xataa biyo ay cabaan ay laayihiin nabad warkeedaba guri dhaxanta ku dhacaysa baaba bay ku jiraan markay sarfeefto oo ama wax yar ilaahay iskugu aadsho lacag yar ay haysato ama ay dibad soo gasho ayaa waxa la leeyahay hoogayo baayay tolo ayay lacagta soo gura ha reer hebel baan gumaysanaya marxaan baan gumaysanaya maya hawiyana gumaysanayo marxaan lacagta soo gur maya marxaan gumaysayo hawiyo lacagta soo gur isgumaysta oo isdila oo isgumaada oo isla dhaca oo meesha doontaan iskala dhaca anaga dumarkana ha naga dilnina wiilasha yarna ha naga dilnina wixii shar ku wada ummadaas masaakiinta oo xaqoodii cunay wariyaa xaqi dadkaas masaakiinta ama carabo ha bixido ama gaal ha baxsho oo ilaahay uga soo qaado ilaahay uga soo saqiro ama ha kireysteen hawada Soomaali waa kiro oo badda waa kiro oo barrinku waa kiro waxan ku meel kasta waa kiro kiradaas dadkan masaakiinta bar shuruuc dadkan qaxootiga ku saabsan wali ma ka maqasheen ninka la yiraahdo mursal odagii gudoomiyihii hore mursal yaa haddana baarlamaanka stiil fadhiya gudoomiyaha maartay mursal wali ma ka maqasheen asagoo masaakiinta shuruuc ku saabsan ka hadlahay laba cali isma weydiinayso marka ninkii xoog la xabagta goosan hay haday iyagu xoog leeyihiin oo markay xabag soo baxdo ay goosan hayaan oo shilinka tay qaataan ay Turki iyo Dubai iyo maaragtay meesha la yiraahdo Muqdisho iyo meesha la yiraahdo Hargeysa iyo meesha la yiraahdo Sheikh Boorame iyo meesha la yiraahdo Nairobi meesha la yiraahdo Turki waliba nin walba guriyo isku faanahayaan guriyo waaweyn ka dhisanayaan xaqi umada ay cunahayaan oo isku wada laaluushahayaan war ilaahay ma ka cabsataan ilaahay ma ka baqayaan marka dumarow walaalayaalow in maaragtay layna isticmaalo oo marka iyagu isqabtaan ay idinha kaalay hubka gada ayagu ma rabaan hanti way haystaan hantidooda inay hubka ku gadaan ma rabaan dumarka ayay ka qaadaan yaa tole because baroorta orgiga ka weyn hadhowna way heshiinayaan tusaale waxa in kugu filan ninkii ka dagaalamaya gedo hebel channel oo intaad ogeydeen dhalinyarada ogeydeen lagu baabaashay oo intaad ogeydeen qalash lagu galay oo diyaaradaha ogeydeen kuwa kale loogu sii rarahay bal hooyada Soomaaliyeed araggaas wax ku soo koris waa kaasa gabdhihii Soomaaliyeed iyo wiilashii Soomaaliyeed dhaxantaas ku haysa waad gaajeysanta gaal baad gacanta u horsanaysa markaas waxaad tuugsi ku soo qaadatay ayaa waxa laga rabaa waayo dabada ku jooga ama qabo way ku shaqaydaa ayadoo soo dhalashay oo ama tobanay cunug soo dhashay ayay shaqaynay ama ma ahay way tuugsanaysa oo gaalkii tuugsanay waxay leedahay waxba ma haysto waxay tuugsi ku soo heshay ayaa haddana waxa la rabaa in laga shubto oo hub lagu iibsado la isku laayo aakhirana ilaahay waa kugu cadaabaha ogaawhe ilaahay aakhirana waa kugu cadaabaha hooyada Soomaaliyeed arag xumadaas wax ku soo korido kuwa Yurub iyo Ameerika jooga oo xaragoohaya oo maaragtay maxaa tirada boorsada garabka ugu jirto araggaas ka timaadeen
halkaasaad ka wada timaadeen xiriyaha qaxootiga soo wada marteen haddaad ku jirtaan hadday ku jirtaan nasiibkaaga uun ku soo hormariyey ma garatay oo Ameerika ku keena laakiin arag xumadaas ayaa ku wada timaadeen oo soo wada marteen marka ninkii ku soo qaxiyay ayaa haddana wuxuu ku leeyahay haddaan soo ku soo qaxina adeerkiisa ku soo qaxiyay haddaan adeerkii ku soo qaxin walaalkiisa ku soo qaxiyay asoo hadda wuxuu ku leeyahay hub kale iibi aan qaxiyo dumarka kale iyo caruurta kale oo meesha ku haray naayaa fakara markay nabadda yihiin maxay idin qabtaan markay nabadda yihiin nimanka Soomaaliyeed kuwa baarlamaanka iyo kuwa wasiirada waa ku yartihiin oo baarlamaanka ku yartihiin oo maxaa tiraahdo wasiirada wax layn kama siiyo xitaa fiiri inaysan nimanka waxba idin ogoleen wasiirada tirada badan oo loo baahneen kulli waxay rabaan inay biil ka wada qaataan ummadaas muslimiinta oo masaakiinta wixii la soo siiyay inay biil iskugu qorqoraan wasiirada hal nin bay ka dhigi karaan saddex jagaa loo dhiibi karaa qofka markaas 500 kaliya laga dhigi karaa mushaharkiisa ma garatay maxaa tiraahday wasiirada xitaa way idin diidayeen ra'iisul wasaare soo magacaaba wuxuu u badinayaa raggii u badinayaa raggu maxay taraan marka waa kuwan hadda isdilaayo oo dadkii iyo wadankii qalqal ku riday maray jidadka ka xiraan dadka cunaqabateen ku sameeyaan bal eeg labadan kaliya maahan waxaan ku intaasa kamid ah kan maaliyadda kamid ah oo kan gudoomiyaha baarlamaanka kamid ah oo labadaana hadda maaragta ugu dardaran oo qabiiladooda u kala yeeranaya war ish faa'iida war guriye Turki iyo isheeg iyo maxaa tiraahday iyo aad ka dhisteen meel kasta ordayo soo iibsada hub ku soo gata isdila isgaraaca laakiin dumarka shirin ha ku bixinina si fiican isku dila cilba u qaba nin Soomaaliya wuxuu rabaa kan kale inuu gumeeyo midba midka kale rabaa inuu gumeeyo midba midka kale rabaa inuu maaragtay oo yiraahdo igama daba hadli karo midba midka kale u jeeda mujtamac uma jeedo oo caruur uma jeedo oo dumar uma jeedo oo hooyadiis uma jeedo oo wiilkiis uma jeedo wiilkaygu nabad ku koraya xitaa ninka fakaraya male ninka fakaraya wiilkaygu wadan uu leeyahay Soomaalinimaha ku fakaro ninkaas hadda madaxweynaha ah wiilashiisa waxay ku koreen qurbay ku koreen ka fakare oo waayo haduu ka fakarahayo nabad ba uu islaaxi lahaa nabad ayuu islaaxi lahaa laakiin si la iga daba hadli kara ku duul dig naanagow dumarow soo gura markay lacagta ka shubtaan waxay dhahaan waa saqiir cag weyn dumarku waa saqiir cag weyn because saqiir cag weynaatiin guryahooda inay gadaan ma rabaan ma soo gadaan guryahan Muqdisho ka dhisan yihiin saraas ayaga dhistay ma soo gadaan Turki bay ka dhisan yihiin haye nin walba oo madax ah ka taga soo weydiiyo Soomaalida Turkiga joogta hadda Turki tagtaana soo duuba guryaha ay ku leeyihiin nin walba waxaan ku iri wuxuu dhistay qasriyo waaweyn asawa waxooda faqriye mid walba wuxuu isleeyahay markaad Soomaaliya aad ka soo qoosatid guryaha qaarna kireyso qaarna ku noolaaw ilmahaguna kuugu raaxaysteen ilmihiisa ku raaxaysanay guri xaq daro lagu dhisay ilma shayaadiinaha ka soo baxa ayaguna wadankii dib hadda ugu noqon hayaan wadankii gam ka dhigayaan waayo wiil xalaal lagu soo koriyay on xaq daro lagu soo korin wallahu san wadan burburiyeen ma garateen guryahooda inay soo gadaan ma rabaan oo ay ku dagaalamaan laakiin dumarka ayay waxay rabaan inay ka furtaan maartay aan maxaa tiraahday baalkooda dumarka baalka garaarkooda waxa ku jira ayay rabaan inay ka furtaan caanaha ilmaha waxay ugu soo gadan lahayd iyo hagbada yar soo qaadatay ayay ka furan hayaan because waxay dhaheen waa saqiir cag weyn dumarku waayo hadda agtooda aad sharaf ku leedihiin heede xeryaha qaxootiga idin ka saari lahaayeen markay nabadda yihiin jagooyinka wax idin ka sii lahaayeen shuruuc idin ku aadan ayay wax ka soo saari lahaayeen kuwa xumo oo dhex taagan baarlamaankana wax ay kala og yihiin lama arko waa wax gaajo ah qofku ka liito ayay ku soo bedeshaan ku soo saartaan wasiir haday xataa dooran hayaan oo wasiir ay oo rabo ra'iisul wasaaraha soo magacaabo waxaan ku iri midba midku ka liito oo ka daanaqsan yahay oo ka qaaqlaysan yahay ayuu soo saaraya mid aan wadan waxba u qabanin subhanallah maxay tawxaan aniga waxa ay soo kacasho ciil ugu dilay inay dhahaan dumaro lacagta soo bixiya lacagta war maxaa tiraahday ceebtina ma asturna haday xagga maraxaanka tahay iyo haday xagga hawiyada labaduba waa qeyliyayaan lacagta soo bixiya soo gura maraxaanka madaxweynaha hala difaaco hawiyin waxay leeyihiin John xawaha magaciisi Saadaq John hala difaaco maxaa aniga laba shaydaan oo shalan maaragtay ku heshiida xaq daro maantana xaqi iskugu timid oo ilaahay madaxa iskugu dhuftay kulli ilaahay madaxa iskugu kiin dhufay
الله يا أنت في الصومالي كل كسو أروش الدبا الدبا وقبته ما هي كسو كرديين إن أيجو إسدلان أو أيجو إسبرصدان ما هني شرعي أنت دك سدان إن الرعان لقى ما يابا والدولة ما هي كتهاي دولة واحد دولة كتهاي شرعي قال دك سدو إيا النظام قال دك سدو إن لقوا الصعدو هدان دولة النظام ككوس عنن ما الشعب كي النظام كوس عنها يا مركب ودنك waxay rabaan hadda ku meel gaar inay ku celiyaan qabiil inay ku celiyaan qabyaaladii qurun laga yimid dadkii ayagii maarta ugu magacaabahayaan war maxaa tiraahday dadka hormoodka ka ah oo madaxda ka ah wasiirada ka ah markuu in adeerkiisna soo dhaweysto kan reerka kalena uu fogeeyo de adeer dadku way ka caayeen dadku dhiig bay leeyihiin markaad soo dhaweysatid ninka la yiraahdo aan channel oo la ogyahay qarashka ku baxay iyo dhalinyarada ku maqan yaa maxaa tiraa saadaqjoonna aad bursatid dee sheekadu qabiil bay isku bedele marka waxaa la rabaa waxa madaxweynaha la talinaayana waa wax hoogoo ba'ay oo raba inay dagaal meeshan ka ridaan oo Itoobiya u heelinayaan oo maxaa tiraa waxay rabaan bareesharka Itoobiya in laga kala dajiyo oo adduunyada hadda Itoobiya maaragtay Tigreegii baa dacwoonaya oo dhahaya min ninka la yiraahdo Abiy Ahmed ayaana gumaaday marka waxaa la rabaa in arrintii xagga loo jeediyo yaa وريا تكتيرنمو iyo maxaa tiraahday aan ninka la yiraahdo afwaaki waa madaxweynaha Eritrea iyo Djibouti madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele dhaqankooda kale anagu ma rabno Soomaali sharaf leh oo xorahanahay anagu xaraha Ilaahayna dhaliyay dumarkan iyo caruurtan meel kasta daadsan wax u qabta shuruucda aad degsateena maxaa tiraahdo ku socda shilin lacaga dumar oo ha bixinina إلهي كبقى إلهي بأيدين كو عذابها يا رير كنغا غوموما ما غومومايو صادق انتا سو غريو ليهاي ilma adeer riyaashiis leeyihiin asagu leeyahay ganacsatadoodu leedahay guryaha ha soo iibsadeen hadday rabaan inay isdifaacaan guryaha ha soo gateen laakiin dumarow adinku shilin ha bixinina hooyooyinka dhalinyaradu saadaqshan shala uu leenaayay 17 December 2017 هذا هويين صومهن dhalinyaro lagu soo koriyay waxay ahaayeen qaxootigaas ma garatay shalay wiilka islaanta ka dishan maanta waxa leedahay difaac oo lacagta ii soo dir الله aday ku leedahay dumaro marka waxa la rabaa inay fikirtaan guryahooda ha soo gateen waxaan ku wadan shisheeye kulli wada shisheeye kalkaal dalkooda ma rabaan wadan shisheeye dhisahayaan wadan shisheeye qurxin hayaan wadankoodana waa jijibin hayaan haye gaalada waa la shirayaa waraaqa loo saxiixayaa maartu isku dhiibahayaan madaxay u laalaadinayaan hadhowna maxaa tiraahday ayaga isku baxsanaya gaaladu saxiix iyo wixii aad saxiixday ayay ku soconayaan gaalada ayaga dhaheena controller ayaga dhaheen maxaa tiraahday dhaqaalana siiya oo maartu miisaaniyada naga kaba ha maxaa ku qabanaysiin dadkan rabnaa xiriyaha qaxootigeena uga soo celino warma waxay awoodi kar waayeen reer walba waxa ku baxaya waxaan aaminsana wax yar baa ku baxaya $10,000 reer kasta ku baxaya 5,000 oo shaqo abuur ah iyo 5,000 oo 3 qol iyo masquul loogu dhiso ayaa reer kasta ku baxaya dadka qaxootiga dhooban dhulkan iska banaan inay u dhisaan oo ku soo celiyaan oo dadka xiriyaha qaxootiga ay ka soo celishaan oo dadka ay gacan qabtaan maxaa u diiday subhanallah marka walaalayaal ilaahay inta ka cabsataan dumarow nimankan wanaag idma hayaan asxaan idma hayaan waa saqiir cag weyn bay idin baxsheen lacagta idin ka shuman hayaan shilin lacag ha siinina shilin lacag sida ayagu afka uga hadlaa idin kor afka ka hadla kulli isla wada caayaysan waxba isma dhaban waxay dhahaan qaar ba xala waxay dhahaan ha dagaalka cidii ku dhimata oo iyadoo madaxweynaha difaaceeda dhimata ama ma ahe maaragtay aan saadaqjoon difaaceeda dhimata dhalinyarada ku dhimata waxa weeye waxa loo dhisayaa taalo waa statue bahalka la yiraahdo isnaamta ayaa loo dhisayaa oo taalo hadii loo dhiso wiil dhalinyaraha oo Soomaaliya muslimna dilay taalo aad u dhistay muxuu u tirayaa korriimadiisa saas ku soo kora noloshaas adag maxaa askarta markuu galaayay wanaag jacayl iyo dad jacayl iyo kabay ahayn wuxuu islaha baahida inuu uga baxo ayuu u galahay dal jacayl laguma tarbiyeen ma garata hadhow nin la arka adeerkiis inuu difaaca la rabaa oo laclaco ilaa siyaad bare maaragtay wax la soconahay oo wadanka xaqiisa ku maqan ayaa wuxuu rabaa wiilashaad yarka oo 20 jiryaalka ah inuu maaragtay inuu dabka saaro adigana lacagta soo gurbo ku leeyahay
marka hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa noloshaas ka soo baxdeen fakara lacag ha bixinina yaan layn ku calool jilicsan waan gumoomaynaa reerkiiba gumooma wax gumoomaya lama arko walaalay macaan lacagta yarka ilmahaga u aruuri aabahood ka fakari ma adeerkoodna ka fakari ma aabihi dhalan ka fakaraynin waayo aabaha dhaldo ka fakara gabadha markuu furo asagoo nool ilmihiisa dib uguma soo noqdaan waa ka dhaqaaqa oo aan biilin aad iyo aad ba u mahadsantihiin jazaakallahu khayr channelka subscribe-ka ii saara nimankaasna gaarsiiya dumarka Soomaaliyeed oo degdeglana gaarsiiya waxa weeye nimankaas ilaahay hanaga qabto wax alla wixii xaq darro wadankeena ku wada Allah hanaga qabto aamin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh